السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay beel kastood naga daawanaysaan. Haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn. Qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa ka mid ah Imaaraadka oo goordhow sheegay in weerar kale oo dhinaca drone-iska lagu soo qaaday. Kulankii muhiimka ahaa ee golaha amniga qaranka Mareykanka ee ka dhici lahaa aqalka cad ee Mareykanka oo wax yar ka hor la baajiyay sababtu maxay tahay iyana tafaasiil iyo wixii laga qoray baan idinkaga soo gudbin doonaa. Waxa soo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa Israa'iil iyo Xisbullah halka ay kala marayaan. Israa'iil oo duqeymo culus geysatay iyo Xisbullah oo iyaduna ka jawaabtay. Haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa intaynu kala maqnayn maxaa akhbaarada oo soo kordhay. haddaba intaynaan barnaamijka iyo qodobada soo socda ayna u gelin waxaan idin xusuusinayaa maanta waxay ahayd talaado inta badan talaadada iyo jimcaha waxaynu channelkeena kale ee YouTube-ka iyo Facebook-ka labadaba qisooyinka soo gelinaa. qisooyinka nadaara laba waxaynu soo gelinaa qiso cajiib ah. haddaba maanta talaada waxaan soo geliyaa qiso aad cajiib ah wax badan dadka qisooyinka jecel iyaguna ay ka faa'iideysan doonaan. waa maasantiin. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa Imaaraadka ayaa goordhow sheegay in weeraro lagu soo qaaday dhinaca drone-iska. Imaaraad waxay leedahay drone-iska maba markuu cabaar naga maqnaadaba waana kor taagay. 48 saac la soo dhaafay 6 drone soo weerartay. haddana waxay beegsanayaan oo ay soo weerarayaan goobaha muhiimka ee halbowlayaasha. waa tii maalin hore 3 drone soo weerarta ay lahayn 2 maalmood ka hor oo ay yiraahdeen xaruntii nuclear-ka korontada laga dhalinayaan la soo weeraray waana la soo weeraray. Sacuudiga isagana ka horeeyay maalin dhexdaas Ciraaq dronesna looga soo diray. marka khaliijkii waxa moodaaba in loo tashado cid u tashatayba saasa loogu dulmeeraysanaa cabsida iyo walwalka oo yaabaysa. haddaba marka Imaaraadku maxay sheegeen goordhoweyd wararkii ugu dambeeyay soo baxay Al Jazeera waxay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Imaaraadka ayaa sheegtay in difaaciyadeeda hawada ay ka hortageen 6 diyaaradood oo drone ah oo cadow ahaa oo soo weeraray. wasaaraddu waxay sheegtay in ay si guul ah kaga hortageen 6 drones ah oo ay sheegeen inay isku dayayeen inay bartilmaameedsadaan goobaha muhiimka ah saacadihii 48 saac ee la soo dhaafay. haddaba difaacaadka cirka ayay sheegeen inay dhammaan ka hortageen iyagoo aan wax khasaare ah geysanin diyaaradaha drone-iska ah sidoo kalena aan wax dhibaato u geysanin warshadaha muhiimka ah ee bartilmaameedkoodu ahaa. haddaba marka sheekadu marka halkaasay joogtaa nimankii Imaaraatiyiinta ahaa waxay leeyihiin waana la soo weerarayaa waana la hayaa waa dhibaatana haysataa 6 drones waa ka hortagnay laakiin marka halkaasaan maartay kaga hortagnay leeyin. marka waa arki doonaa kullay cid sheegatay male xaalku waa iska qasan yahay. bariga dhexe xaalkiisu waa bariga dhexe allow sahla la barayaa. marka mar la isu dhaarto mar taraam yiraahdo dibaan u dhigay marka la yiraahdo marka waa meel iyadoo dhan aan fadhin oo saas loo baqayo. qodobka labaad ee barnaamijkeena labaad waxaynu ku soo qaadanaynaa saan barnaamijyadeedii shalay iyo aan kaga hadlayay idin sheegay maanta waxaa loo ballansanaa golaha amniga qaranka waddanka Mareykanka inay kulan muhiim ah yeeshaan oo arrinta Iiraan ku saabsan maanta talaada. kulan muhiim ah inay yeeshaan laakiin hadda aqalka cad war soo saaray uu leeyahay kulankii waa la baajiyay. sabab kale ma jirto maadaama Trump uu dib u dhigay weerarkii Iiraan uu ku qaadi lahaa awalba weerarkaas looga arrinsan lahaa dibaa loo dhigay leeyahay. haddaba markaan idin soo warbixintii ugu dambeysay sheekada kulankan laga qoray haddaba dib ayaa loo dhigay kulankii golaha amniga qaranka dalka Mareykanka oo ka dhici lahaa aqalka cad ee dalkaasi. mas'uul Mareykan ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in dib loo dhigay kulankii golaha amniga qaranka ee aqalka cad iyadoo la sheegay in ay Trump markii uu dib u dhigay
arrinta dagaalka iiraan looga hadli lahaa in kulankan isagana maaragtay dib loo dhigay oo mar kale aan waqti loo qaban bal la isugu iman doono sida xaalku yahay marka ninkii drama waxaa leeyahay laba mid tahay nin falanqeeya oo aad xariif u ah ayaan dhagaysanayay oo la wareysanayay wuxuu leeyahay laba mid tuu ninka in wax looga sheegay iiraan uu ka cararay uu ka baqay uusan dagaal dambe soo qaaday mar dambe uusan dagaal soo aadi doonin iyo ninkan inuu gaadmo damacsan weerar gaadma marka labadiisa sii macneeyeen marka waxay yiraahdeen inuu marka waxay u badan tahay uusan dagaal dambe aadin kow haddii gaadmo uu sameeyo muxuu faa'iidi karaa gaadmo ka weyn ma jirto yiri aayatullaahigii ugu weynaa in la soo gaaday la dilay wax ma isbedelay may hadduu irka galo muxuu samayn karaa uu gaadi karaa aayatullaahiga kaloo dili karaa aayatullaahi ma la weynaa horo ka soo baxa marka wuxuu yiri marka sheekadu marka ilaa hadda Trump wixiisa waa lagu wareersan dibaan u dhigay waa weeraraya kana sameynaya Israa'iil waxay leedahay wuxuu dib u dhiga male amarka bas sugaynaa heeganaan ku jirnaa adduunkii dhan marka waa wareersan Iiraan marka waxaas ma kala jaqlo dhaay anshuurteedaba iska guranayeen markay maraakiibtii malabsatay oo wixii ay ka qaaday karta ka qaadatay ayay waxay u soo jeesatay kayballadii dhulka marayay kaybalkii internet fiilooyinka internetka lacag ka rabnaa marka sheekadaas marka sheeko waaliya marka meesha ka socoto leeyahay qodobka isaguna halkaas ka gudbaynaa qodobka kale ee soo kordhay waxa kamid ah Pakistan waxay leedahay waxaanu rajo ka qabnaa in dhawaan wada hadaladii dib loogu soo laabto oo Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeyay Pakistan dhanna wada hadalada ka wada dadaal ay ku jirtaa halkaan nimankii Mareykanka iyo Israa'iilna shakiga ka qabaan waxay leeyihiin diyaaradahan baaso militarigu leeyahay wax dajinaya wax sii socda iyo nimanka Shiinaha iyo waxaan isku xiran iyo meeshan maxaa socda marka adiga sheeg waa la wareeray adduunka Pakistan nabadana ka shaqeynayna waa kana leedahay dhanka kale waxa leeyahay saar barnaamijkii hore ku aragteen diyaarada xamuula soo gaaray hadda goordhow waxa arkay warbixin la leeyahay nin oo sida aad u weyneen oo xildhibaanada baarlamaanka Pakistan kamid ah waxa la yiri diyaaradahan aad meesha geyseen hub ma ku geyseen maxaa geyseen wasiirka arrimaha gudaha qaaday kula maalin Soomaaliya maqlin kula wasiirka arrimaha gudaha oo socdaan aan loo sii sheegin ku tagay Tahraan wasiirka qaadano wasiirka ma diyaarad xamuula wasiirka meeqa kiilo سوى وزيرك بيغا كيلو بايو وعونا ديارتها وين أركيسي كلها وزير كاريبا قديود بركا شاكدا سابركا إيدو راسو كورت هذا بركا أردتوسو وراركي يقود بياريكا لغا قوري warbixino dhanka Pakistan ka yimid goordhow waxay sheegayaan in rajo laga qabo suuragalnimada inay sii socdaan wada hadaladii Washington iyo Tehran oo heshiis laga gaari doono haddaba sida ay Pakistaaniyiin u sheegeen jaridda New York Post waxay aaminsan yihiin Pakistaaniyiintu in wada hadalada tooska ah ay socon doonaan oo markaa ay dhinacyada isugu iman doonaan qodobka isaguna halkaas ka gudbayna qodobka kale ee barnaamijka aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay arinta koonfurta Lebanon waa la ishayaa meeshaas ma la soo naxariisanayo nimanka Israa'iiliyiinta ayaguna bambooyinka iyo waxa ay ridayaan waa yaabisa iyaguna diyaarado drone inta roobka looga dhigay ayay jabkooda qarsanayaan marka halka si fiican la sugeeyay maanta ugu dambeysay duqeymaal la isweydaarsan hadaba markaan ay tuso wararkii ugu dambeeyay ciidanka Israa'iil waxay sheegeen inay weerar ku qaadeen 25 meelood oo ay sheegeen inay ahaayeen bakhaaro lagu kaydiyo hubka oo ay lahaayeen Hezbollah hadaba goobahaasi waxay yaalay leeyihiin gantaalaha ay ridayeen nimanka Hezbollah gantaalahooda meel ay yaaleen ayaanu weerarnay leeyihiin oo ku yaalay koonfurta Lebanon dhanka kale Hezbollah iyaguna waxay sheegeen in ay weerar ku qaadeen ciidan Israa'iiliyiin oo ku sugnaa xero military halkaas oo ay ku weerareen diyaarado drones haddaba waxa soo dhacay ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa war soo saaray wuxuu leeyahay annagu waxaan diyaar u nahay wax kasta oo Trump la yimaado shacabkeenu way midaysan yihiin
dadkeenu waa mid maba aqbalaynu leeyahay wax gardarro ah waana u diyaarsanahay inaynu ka hortagno weerar kasta oo nooga yimaada dhanka cadowga ayuu leeyahay haddaba marka wuxuu sheegay wax kasta Trump ha keeno mar ha yiraahdo dagaalkii waa hakiyay mar waa weerara wuxuu rabaa sheegay annagu mar walba difaaca ku jirnaa adeegeena kalena waa wadanaa waay Hormuz waa loo xaratay ilaa maanta waxaa hadlay isaguna aan arkay gabadha wasiiradda arrimaha dibadda ka dowladda Ingiriiska waxay dhahaysay Iiraan waxay afduubatay marin biyoodka Hormuz marka waa in xal loo helaa la isu yimaada adduunkii oo dhan malaayiin qof cunto la'aan ku dhacday adduunkii dhaqaalihiisa wareeray Iiraan marka adduunkii oo dhan afduubat marka waa in wax laga qabtaa ay dhis